السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ليدرز وسلامتين مeel kasta aad joogtaanba salaan kadib run ahaantii badanka hal su'aala ayaa badanka hal mar oo isku mid ah ayaa badanka soo noqnoqota. taas waxa weeyaan sidee baan levelkayga u bedeli karaa, sidee baan dhaqaalahayga u siyaadin karaa, sidee baan u raali gelin karaa macaamiishayda, sidee baan prospectingkayga amba qofkaan soo casuumay aan warbixin fiican u siin karaa oo u qori karaa, sidee baan koritaan iyo sidoo kale horumar aan u samayn karaa. su'aalahaas waa su'aalo marar badan soo noqnoqda, waana su'aalo isku mid ah runtii. maanta hal qodob oo intaasoo dhanba koobsanaya ayaynu halkan iskula eegi doonaa. qodobkaa run ahaantii hadduu qofku sameeyo oo sida ugu saxsan uu sameeyana ay ka dhigayso inuu go'aan qaadashada uu sameeyey ay ka dhigto mid isbedel ku samayn karo oo waxa uu doonayo oo dhanba uu ku heli karo. qodobkaas waxa weeyaan waa decisionka, real decision, go'aan qaadashada weeyaan. go'aan qaadashadaas waxa weeyaan waa mid go'aan kama dambaysa igama dambaysa ah. hadduu qofku qaato waxay ka dhigaysaa inuu waxa uu doonayo dhan uu helo. kama aha uma baahanayo qofku training iyo tababaro badan, uma baahanayo sponsoro badan, uma baahanayo sidelines badan, laakiin wuxuu u baahan yahay go'aan qaadashadiisoo keliya. hadduu go'aan qaato oo waxaa ka dhigaysa qofkan inuu isbedel sameeyo. ma jirto dhinaca uu eegayo, ma jirto midig bidix dhinaca uu eegayo. sidoo kalena waxay ka dhigaysaa taasi inuu hore uunu socdo oo waxaan jirin dib u noqoshadu uu keenaysaa waxa weeye marka uu yidhaahdo shalay saasaa laygu yidhi, daraa taasaa laygu yidhi, kuwii horaan marti qaaday saasay igu noqdeen, macaamiishii sidana igu leeyihiin, waa la dhaleecaynaya, deegaankayga caqabadahaasa iga imanaya. waxyaabo badan oo mar iyo laba iyo saddex ku yimid ayaa waxay ka dhigaysaa inuu noloshiisa oo dhanba ay ka dhigto inay noqoto caqabadahaas mid uu noolaanayo. laakiin waa mar amba laba amba saddex. waxaasoo dhan waxaa baabiinaya oo go'aan qaadashada weeyaan. haddaad go'aan qaadato adduunkao dhan waa ku raacaya. maalin kasta waxaad arki doontaa adiga oo koritaan samaynaya, adiga oo isbedel samaynaya. waa real decision. qofku wuxuu ku odhanayaa anigu go'aan baan qaatay, anigu isbedel baan sameeyay, anigu leader baan ahay. laakiin beri hore ayuu qalbihan dad leaderska qaar ay qalbihan isdhiibeen. waayo muxuu aaminsan yahay? sababta taawleena waa maxay? isagoo leaderku jooga oo shaqaynaya oo dadaalaya ayaan haddana uu isdhiibay. sababtaas waa maxay? sababtu isku dhiibay waxa weeyaan wuxuu aaminayaa inaanu martiqaadku adag yahay, inuu dabagalku adag yahay, inaanu cid qori karin, inuu dhibaato badan haysato. laakiin meeshu waa jooga. waxaasoo dhan meesha waa ka saaraynaa. niyadda waxaan leenahay maanta waa maalinteedii. maanta waa maalinta isbedel samayn karo. guushu sideedaba way yaro gufaysmi kartaa. gufaysinku waxa weeyaan marka meel biyo ka dhacayeen si fiican uga soo bixi waayaan, guushuna way yaro gufaysantaa. laakiin maxaa lagaga baahan yahay? aniga igama dambaysa inaad tiraahdo. kadib maxaa imanaysaa markaad real decision amba go'aanka ugu saxsanaad qaadato ee ah igama dambayso. waxay taasi keenaysaa in caqabadahoo dhan ay kuu fududaadaan, caqabadahoo dhan adiga ku raacaan, caqabadahoo dhanniba fursada ay noqdaan. laakiin marka aanu go'aan jirin, caqabad kasta oo kuu timaada iyo waxyaabo kasta oo caqabado kaa hor yimaada way ku dhibayaan. waxay kugu noqonayaan boog, waxay kugu noqonaysaa qodax mar kastaba ku mudda. marka waxaan u baahan nahay go'aan qaadasho. hadday go'aan qaadanno adduunku isaguna amba shaqada iyaduna waxay inoo noqonaysaa mid ina raacdaa. caqabaduhuna waxay isku bedelayaan fursado. go'aan aynu qaadanno, isbedelna ay samayno. waa mahadsantiin.